waayahay waxaanu inii haynaa barnaamijkii kaftanka siyaasadda oo maanta kale aanu qabanaynay laakiin aanu ii soo dayn doono berito kani maaha kaftankii siyaasadda kani waa hordhici kaftanka siyaasadda waxyaalaha ugu qosolka badan oo bal alle xaraare inoo hayo si inuu ugu sii sugno inta uu inoo soo socdo inoo karayo kii kale marka waa ku sii sugkan maaha kii isaga oo isu dhammaystiran waa heli doontaan bal alle xaraare aan weydiiyo war caliyo maanta dadka maxaad bal u haysaa ku sii sugeen ياسينو ha horta qodobo badan baan haynaa haye laakiin inta waxay ku sii sugi karaan ha waxa ku jira ha dad iska wada sheegnay daalo cidina daawanayso hada wixii sheegnay ha haye waxaan eegi doonaa ha haddii ilaahay kuu run yahay qodobada ugu muhiimsan haddii aynu baadhno ha waxa weeyaan airportkii laga furay magaalada garowe ha ha ayaa waxaa la doonayay markii hore haye oo in loo bixiyo magac haye Farol Airport Farol Airport baa la rabay loo bixiyo ayaa loo bixiyay haye wata dagaal baa halkaa ka dhacay dagaal haye General Maxamed Abshir ha ayaa loo bixiyay haye wata dagaalkii ayaa Farol ka daba tagay ha markii uu Cabdulle hadlaba ha ka daba dagaalkaas uu dhacay ha Farol iyo Cabdulle ha oo juqjuqaynta uu wado oday Farol la wada juqjuqaynta ninkii kale waa degan yahay oo amsu yaabay wasaase ayaan eegi doonaa haye waxaan eegi doonaa ha booqashadii farmaajo ku tagay ha meelo badan haye ayaa inta muhiimadda ha bil ku soo qaadayna aynu soo qaadanaa wasaase ugaaska dishisha ha magaalada Boosaaso ha ayaa si caaqib leh ha u suudui sooriyay ha wafdi haye reerkaas ha reer siyaasadda Puntland ka dhex muuqda ma haynay ma ahayn haye nin uun baa magaciisa la sheegi jiray marka reerka laga hadlay ha Saciid Maxamed Raagi ha oo ilaa Cabdullaahi Yuusuf ha isaga ahaan jiray ilaa iminka ha wasiir uun buu isaga ku talaxtay inta kale ha badda ha ayay iska jireen kalluunkooda badda doonteeda la raaci ay jiray la raacay haye way ka soo jeesteen imika oo ha kalluunkii hawlihii xudoonayaan ha inay meel adag ka galaan siyaasadda ha haye dubba federaalkii ha way isbareen federaalkii la qabsadeen way isbareen haye Puntland buu ka talaabsan haye maalmihii hore waxay iska qaadi jireen ha badda doon ba marayso badda ba marayso wajawaysiday ya ka soo gudba hawsha haye xaalku sidii hore ma haye marka hal hidii dhaqankii oo dhan ku dhan ha ay guddoonsiyeen haye ugaasku wuxuu kala ogay beer weyn ha caadi hayd nabadda iyo nabadda. raaxada ha runtii qayb bay ku lahaayeen ha soo dhaweynta warbay waa madaxweynaha tashi soo caadi ma haye waaye haye walaa intaasaan ku dhaafin wasaas muuse bixi baa isaguna booqasho ku tegey haye waddanka Djibouti Djibouti haye khudbadii ugu horreysay uu Djibouti ka aqriyay ha ayaa wax u gooyey ha magacii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele Ismaaciil Cumar Geele garan waayay ha magaciisi dabeetana markii uu ku margaday ha ayuu wuxuu yidhi ha madaxweynaha haatan idin jooga iyo General iyo General Zakariya Zakari malaa nin ciidamada ayuu halka kala galay ayuu la galay haye marka waxaan sidii ha inuu dasle buu ilaabi karaya Ah. Ismaaciil Cumar Geele ha magacaas magac la ilaabi karaya ha soo xanaaq waxa keenay ha madaxweynuhu markuu tagay meesha tagi ha ka tagi ayuu Ismaaciilna wax daba dhigay Ah. calan Djibouti wara muuse waa marka khiyaamay muusu bas oo sikii Djibouti iyo daba yaala khudbadii wuxuu ku bilaabay madaxweynihiinan ha iyo General Zakariya Iyo- aad baan ugu mahadcelin arrinkaasna ha waa arrinka haye waxaan kaloo ku eegi doonaa meelo fara badan ha oo iyana dhibaatooyin ha ka jirto ay ka jiraan u baahan saxitaan saxitaan dee kolley barnaamijka intiisa ha ayaynu ku soo qaadan doonaa ha haye laakiin bal intaa ha ayaynu ku soo gabagabaynaa ayaynu kusoo gudbeen waayahay dadweynaha sharafta leh ee naga daawanaya meel kastoo aad joogtaan waxa weeye kaftankii siyaasadda isagii oo dhan meelo badan la tegayo hoos loo gelayo ayaa waxaa ku daawan doontaan axadda soo socota waa axaddan berito ah ayaa daawan doontaan isagoo isu dhan marka amaqnaan ana moogaan waxa weeye waa kaftan siyaasadeed okay